Boorama Maxamed Xuseen Maydhani oo weheliyaan xogayaha fulinta ee dowladda hoose degmadaasi Boorama Xasan Yuusuf Riiraash xubno ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Boorama mas'uuliyiin kala duwan oo ka tirsan dowladda hoose degmada Boorama iyo shaqaalaha dowladda hoose oo maanta warbaahinta kula hadlayay xarunta dowladda hoose degmadaasi Boorama ayaa waxay soo bandhigeen gawaadhi cusub oo la soo degtay dowladda hoose degmadaasi Boorama taasoo si weyn looga qayb qaadan doono bilicda iyo horumarka ka socda magaaladaasi Boorama hadalladii goobtaasi laga jeediyana waxay u dhaceen sida tan waa waxqabadkii ugu weynaa gaadiidkii ugu badnaa maamulka cusub baa iibiyey ama maayirkii iyo xogayii ugu horeeyay ee iibiya 5 baabuur halkan baabuur meed hal baabuur oo kaliya ayaa lagu ogeyn dowladda hoose cadceed sacab laguma qarin karo waad arkaysaan dhammaan dadkana daawanaya waxqabadka iyo horumarka ay ka shaqeeyeen madaxda dowladda hoose maayirka golaha deegaanka oo dhan iyo xogayaha dowladda hoose oo noo matala central governmentka waxay annaga noo tahay farxad weyn runtii waa markii ugu horreysay ee gaadiid intaa leegi uu iskugu yimaado dowladda hoose runtiina aad baad ugu mahadsan yihiin wax wada qabadka isdhinac joogga ayuu ku yimaadaa wax waliba wakaa wixii waxqabad ahaa maanta muuqdo runtii anoon cidna si gaar ah farta ugu fiiqaynin golaha iyaga deegaanka waa saaxiibada waxaan leenahay kaale aan ummadda u shaqeyno wixii laynoo doortay aan qabanno runtii waxqabadka golaha deegaanka inaanu u sheegno oo soo madhigno bulshada ayaan shirka jaraad loo qabtay xaqiiqatan waad arkaysaan sanadihii u dambeeyay gaadiidka faraha badan lee 5 gaari ka kooban 6 gaari oo soo madhignay maanta waa waxqabadkii baabuurtan hore sanado hore soo iibinay laakiin imika miisaaniyaddii sanadkan aan ansixinay labada baabuur ee laga soo iibiyay iskarogada iyo maxay ahaydeen iyo gaadhiga kawaanka oo waliba ka sugayno 3 biloodkan inay ku dhamaystiraan guddiga fulintu kawaankiina inay ku daraan waxa runtii aad mahad ugu mudan mas'uuliyiinta xilka haya ee xildhibaanada iyo guddoomiyahooga iyo xogayaha dawladda hooseba waxaan aad ugu ammaanaynaa inay dib ugu celiyeen dadweynaha hantidii cashuuraha ee ay ka qaadeen dowladda hoose waxaan waxqabadkiisa sheegaya maayar Maydhani aanu la soo shaqeeyay 4 maayarkii ugu waxqabad badnaana uu yahay ma sha Allah 6 baabuurad indhiina ku haysiin iyo wax ka badan xogayii isaguba ay qabteen inaan muxuu ahaay sanadkan aan ugu tala qorsheynay gaadiidkan midda kale soo hore la idigu sheegay kawaanka diirka waan ku xidhaynaa cid hore ugu xidhin oo naga go'an yahay inaan ku xidhno waxa naga go'an inaan bilicda magaalada hagaajino markaan iskarogada soo iibinayno cagafta soo iibinayno waa in la ogaadaa in loogu tala galay in lagu qurxinayo magaalada run ahaantii maalintii shirkan la wareegay qolada saxaafaddu way ogeyd 300 kun oo deyna in la soo hordhigay shaqaaluhuna 4 bilood mushaar kala haayeen maanta waxba yaraatay shaqaalu mushaar ay leeyihiin ma jirto intaas soo jid iyo intaas xanaano 10 xanaano 6 jid waxbarashadii isboortigii odageedoon garoonka waxaan ka qabanay waxaad ogtihiin mid gaadiida on markii ugu imid xerada ma jir gaadhigeygana ku dhaxo waxaad arkaysaan gaadiid maanta jooga annaga ayaa iibinay Maxamed Xasan Sharbere telefishinka Ariel magaalada Boorama.